kusoo dhawaada markaana suuqa kale iibsiga maanta waxaan ka hadli doonaa dhowr kooxood waxay la soo wareegeen ciyaartooy inaba caadi ahayn marka suuqan si weyn looga adeeganayaa. Arsenal waxay dhamaystirtay Gabriel Jesus wayna shaacisay sidoo kale City ayagana shaacisay inuu ka tagay waxayna soo saxiixatay Manchester City Calvin Phillips oo qadka dhexe oo Leeds shub inaba caadi ahayn. وأنا أقتين هولنتين وحي صوصي حتى هالاند بدل كيس جابريل جيسوس أي صوصي حتى مركز جابريل جيسوس وحو قصبا هذا إنه كتنقو كوحدة صوته عريري يكونوا قناه وحونا فريدنا بنجي وفريدنا مركز وحاول كيت كنت فريد لهيد وحكاها في عن كوحة كهلس الفرصة أذكر عياتي مركز وحو دور بدينه كعياره أرسنال على شيء يا هذا ورك صباح وحي شيئين كريستيانو رونالدو إنه ضل بدي إنه كتنقو كوحدة وحونا هو تجا صباح وتجا نوحيت هاي إنس جامس لك كعيارين marka hore koox jaamti ka ciyaarayso inuu ka ciyaaro soo hadhowti yani balandoorka iyo kooxa ay xal dhihi kara biladaha adduunka la siiyo inuu sanadkaas ka soo muuqdo rabaa ninka marba inuu yani isku markii duqooba asagoo 37 jir waxa weyn isma dhiibay ilaa hadda waxa rabaa inuu Messi si fiican u tartamo marka waxa waa jaamti liga ka haro waa u dhamaatay marka waxa la sheegay inuu xataa kooxda muus imaanin training muus imaanin Cristiano Ronaldo wuxuu qorsheynaa inuu koox raadsado marka Manchester United way diidanta waxay taaganta waa inaan noo joogto arabna marka Ronaldo wuxuu muuqataa inuu ku tagi doono United sidoo kale waxay la soo saxiixatay Christensen Brentford Frios ka ahay waa soo saxiixatay qadka dhexe ee Tottenham sidoo kale cunugiriis oo Tyler la dhaho Van Rion oo difaac ka ciyaar ay soo saxiixato daayar marka Manchester waxa la dhigaa hadda wax yar ay isbedel sameysay laakiin wali wuxuu baahanta ciyaartooy badan oo ka tageen Barcelona sidoo kale si weyn uga soo adeeganayso suuqa kale iibsiga laba ciyaartooy qadka dhexe ay isku markiiba soo saxiixatay Inter Milan qadkeeda dhexe ee Kesse iyo sidoo kale Christensen Andreas Christensen oo Chelsea u ciyaari jiray labadooda free ahaan si free ku soo qaateen kooxda Chelsea wadahadal waxay kula jirtaa Raheem Sterling waxay rabtaa in laacibkaas Man City hadda yani noqdo keyd ka noqday inay la soo saxiixato oo ku adkayso yani kooxdeeda sidoo kale waxa la sheegayaa wararka subax waxay sheegeen Ronaldo inay bilaabeen in la hadlaan sababta fursada ka heleen meeshaas inuu Ronaldo ka tagayo United bedelkii Lukaku ma ka dhigi karaan Ronaldo asliin Chelsea Lukaku waqti 100 milyan ku soo gatay waana ku fashilmeen marka waa bedel fiican haday Ronaldo ay la soo saxiixdaan Tottenham sidoo kale si weyn uga soo adeegatay suuqa kale iibsiga waxa Tottenham sanadkan way dhaarsantaa waxay rabtaa Champions League inay meel fiican gaarto Premier League sidoo kale lagu dagaalantaa sanadkan waa si fiican isku soo adkeynta baraha hadda joogo ee Talyaaniga si weyn oo raba lacag inay kooxda galiyo oo ciyaartooy badan soo keeno Richarlison Everton ka keensanay sidoo kale Foster Southampton ka keensan Bissouma ee Arsenal rabtay way keenay yani Ivan oo ka yimid asagana sidoo kale Inter ay la soo saxiixday Inter Milan marka Tottenham sanadkan waa dhaarsantaa Arsenal waxaa la sugayaa inay la soo saxiixato dhowr ciyaartooy kale inta uu xirmin suuqa kale iibsiga intaas ku ogyahay maanta ha iloobina like subscribe na sartiin sidoo kale in soo qortiin commentiga kooxda aragtina ka soo hadlo waxaa isku day doonaa inaan ka soo hadlo koox kasta wax yar marka Arsenal kaliya ma Arsenal waa taageera laakiin Arsenal kaliya kuma soo hadli doono marka asxaabta xiisaysa kubadda cagta ku soo dhawaada channelkan